كلية شرعية شريعة قانونك جامعة عمود أي حفيزكي ugu horeeyay oo ka shaqeynaya adeega sharciga waxay shalay ka furatay degmada Boon ee gobolka Salel xafiiskan waxa xariga ka jaray gudoomiyaha jaamacadda Amuud Professor Saleebaan Axmed Guuleed iyo maayarka degmada Boon munaasabadan waxa ka soo qayb galay guud ahaan bulshada ku dhaqan degmadaasi Boon waxaana ugu horeyn ka hadlay Xasan Cali Xasan oo ah madaxa adeega sharciga ee kuliyada sharciga shareecada iyo qaanuunka ee jaamacadda Amuud waxaana ka waramay muhiimadda uu xafiiskan u leeyahay bulshada ku dhaqan degmadaasi Boon xafiiska waa xafiiskii labaad marka magac anagu waxaan isticmaalnaa magac jaamacadda Amuud sumcadda Amuud ay shaqaysatay ayaanu isticmaalnaa oo sidoo kale xafiis kan la mid wuxuu ka furay Hargeysa balse waxa uu xafiiska kaayagu inuu xagga sumcadda maadaama uu isticmaalayo magaca Amuud aan u adeegsano ka tirsanahay marka jeelka kale waa madalnaa oo dadka la caawiya saldhigyada waa loo tagaa dadka waa la caawiya guud ahaan klinik waa sidoo kale Professor Maxamed Cali Nageeye oo ah hormuudka kuliyada sharciga shareecada iyo qaanuunka ee jaamacadda Amuud ayaa isaguna waxa uu madashan kula hadlay bulshadii ka soo qayb gashay waxaana hadaladiisa kamid ahaa walaalayaal kuliyada sharciga iyo qaanuunka waxa weeyaan kuliyadaha magaalada Boon ka furan ee Amuud ka tirsan runtii ujeedooyinku weyn waxa weeye dadka sharciga la baro sharciga islaamka in la baro kii kale maadigana inuu barto dinaan sharci aqoon waan in dhala adduunyada maanta waxay ku kala socotaa ay ku kala dambaysaa waa marka sharciga la helo iyo kala dambeyn laha Soomaa barnaamijka hadda uu noo sheegay adeega sharciga waxa garab socda in qofku sharciga uu barto laftiisa in laftiisa shariicada la baro tii islaamka la baro tii maadigiina la baro taawaan ku guulaysanaa alxamdulillah waxa weeyaan anaga kuliyada sharciga marka la sharci islaami ee kii labadaba la baraya waxa weeyaan waxaan jira barnaamij aqoon darsida ah oo halkan la iska qori karo oo aan bilownay oo jaamacaduna ay ogolaatay oo la fidiyay ilaa imka waxa weeyaan arday badan ayaa iyagoo meeshoodii meheradoodii iska jooga ayaa manhajka loo keenay shahaadadiisa ay ku qaaday imtixaanka bay marayaan sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda Amuud Professor Saleebaan Axmed Guuleed ayaa waxa uu ka shanqariyay howlaha adeega sharciga shareecada iyo qaanuunka ee jaamacadda Amuud ay wado waxaana hadaladiisa kamid ahaa Dr. Xasan sheegay qofku marka uu garsoorku waa muhiim weyn leh garsoorki marka wuxuu baahan yahay qof mashruucan oo access to justice wax la yiraahdo yani waa helitaanka cadaaladda in hadii aad baahato wayna sharciga horta marka hore fahamtaa dadku daalimiya madluum bay nahay daalimka cid ka qabatay waa inay jirtaa waa booliiska iyo maxkamadda iyo waxa cid ku dacwidana waa in la helaa oo gartaadii sheegta cidii ku dacwiyahay maanta waa jaamacadda qaar kamid ah bulshada ku dhaqan degmadaasi Boon ayaa ugu mahad celiyay jaamacadda Amuud wax qabadkeeda dhanka horumarka ah oo ka wado degmadaasi Boon iyadoo hore jaamacadda Amuud degmadaasi Boon ay ugu hirgelisay xafiis ay leedahay kuliyada waxbarashada ee jaamacadda Amuud Cabdi Fataax Axmed Hadwanaag News magaalada Boorama